daawadayaal ku soo dhawaada wararka cawka iyo caalamka oo anigoo Maxamed Cawka ayaa idin soo tabin doona wararka caalamka ay idin hayno waxa kamida duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay xarunta gobolka Tigray ee Ethiopia. Japan ayaa qorsheynaysa kantaalada ridka dheer si ay uga hortagto Shiinaha iyo Ruushka. madaxweynaha Ukraine ayaa u digay ciidamada Ruushka xilli ay koonfurta Ukraine ay duulimaad ku yihiin. ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay qabteen markabkii ugu horeeyay ee Ukraine ka socda oo loogu talagalay wadamada Soomaalida ayaa ku soo xidhay dekada Djibouti. markabkaasi muxuu sida talow daawadayaal duqeymo cirka ah ayaa lagu qaraacay xaafad u dhow isbitaalka ku yaala caasimadda gobolka Tigray ee Ethiopia. sida uu sheegay madaxa isbitaalka oo ay soo gaadheen dhaawacyo wax ka yar 7 kadib. afayeenka militariga Colonel Gednad Adani iyo afayeenka ra'iisul wasaaraha ayaa jawaabay codsiga ku saabsan weerarka cirka oo ay aamuseen. Tigrayga oo dhankooga sheegay in ay burburinayaan heshiiska xabad joojinta. Japan ayaa sheegtay in ay hormarin doonto hubka dagaal soo saari doonto gantaalada loo yaqaan cruise missileska iyo gantaalada balastirka oo xawaarooga aad u sareeyo, taasi oo ka qayb ah ballaarinta militariga ee looga gol leeyahay in lagula tacaalo khataraha Shiinaha iyo Ruushka. Japan ayaa cabsi weyn ka qabta labada wadan waxaana marnaba la yareysan karin in ay dagaal soo qaadi karaan. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku buuriyay askarta Ruushka in ay naftooda la baxsadaan kadib markii ciidamadiisa bilaabeen duulimaad ay ku doonayaan inay dib u qabsadaan koonfurta Ukraine. laakiin Moscow ayaa sheegtay in ay iska difaacday weerarka khasaare xoogan u geystay ciidamada Kiev. Ukraine ayaa isniintii sheegtay in ay ciidamada dhulka ay qaadeen weerar markii ugu horeeyay kadib markii ay muddo dheer hawada ku hayeen khadadka saadadka ee Ruushka, gaar ahaan goobaha rasaasta iyo buudooyinka ka gudba webiga Dnieper ee istaraatijiga ah. ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa gacanta ku dhigtay diyaarad aan duulimaad lahayn oo Mareykanku leeyahay, taasi oo ku sugnayd gacanka Khaliijka. waxaana isku dayeen in ay jiitaan, laakiin ciidamada Mareykanka ayaa sii daayay markab aan cidi wadin. markabka dagaalka iyo helikobtarada ciidamada badda Mareykanka ayaa ku soo dhawaaday sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanku. dhacdadan oo dhacday Talaadadii oo soo noqnoqonaysa markii ugu horeysay ee ciidamada badda ee fadhigeedu yahay bariga dhexe ee 50 flight ee cusub. markab ay qaramada midoobay u karaysay Ukraine oo sida qamadi oo loogu talagalay malaayiin qof oo halis ugu jira in ay macluul u dhintaan ayaa soo gaadhay Djibouti sida ay sheegtay hay'adda cunnada ee adduunka ee WFP. markabka xamuulka qaada ee magaciisa la yiraahdo MV Private Commander oo sida 23,000 oo tan oo hadhuudh ah ayaa ku soo xidhay dekada Geeska Afrika salaasadii 2 toddobaad kadib markii uu ka soo ambabaxay dekada badda madow ee Ukraine. waxaa la gaadhsiin doonaa wadamada Geeska Afrika sida Ethiopia, Soomaaliya, kuwaas oo ay saameysay abaartu. awkii iyo wararka caalamka maanta inta ayaa idin haynay. waa anigoo Maxamed Cawka oo idin soo tabinayay. daawadayaal intaynu dib u kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.